xogayaha arrimaha bulshada xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Sadiq Dhamme oo maanta kormeer ku tagay wadada hormarta xarunta ciidamada damdamiska Somaliland iyo wadooyin kale oo dhowr ah ayaa mas'uuliyiinta dawladda hoose ugu baaqay inay wax ka qabtaan wadooyinkaasi kuwaas oo halbowlow ah bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa waxaana kamid ah hadaladiisii waxaanu joognaa halkan waa laagta marta hortiisa damdamiska ciidanka damdamiska waa jid muhiima ciidanka dabdamisku waa ciidanka badbaadada waa ciidan shaqo badan haya wadadaasina ma aha wada ay ka maarmi karaan gaadiidka dabdamiska iyo gaadiidka kale isaga goosho magaalada gudaheega hadda gaariga idin muuqda gudaheegu ku dhacay gawaadhi badan oo kale waa laga samata bixiyay laagtaas mar wal oo la saaro wado way go'da sababtuna waa inaan marka hore la dhigin jid tayo leh ama bariish yaro drainage ah oo loogu talagalay in biyo hoos maraan mas'uuliyadaasina waxay saarantay waa golaha deegaanka iyo dawladda hoose waxaanu soo marnay wadooyin kale iyaguna halbowlaa gawaadhida dhib ku qaba dadku waa cashuur bixiyaal waxa laga qaadaa lacagtii wadamarista cashuurtii wadamarista cashuurihii kale waxay xaq u leeyihiin muwaadiniintu inay helaan jidad wanaagsan oo gawaadhidooda ku nabad galaan oo yareeyo shidalka oo yareeyo gawaadhida dhibtooda jidka imika dhib weyn baa lagu qabaa masiibada ugu weyn waxay tahay mar roob soo da'ana lama mari karo marka la marana saas ugu dhacaya gaariga mara oo waxay noqotay bahol wadooyinkii magaaladuna waxa noqdeen xabaalo oo kale jidadkan go'aya sidan ay u dilayaan biyuhu iyo daadadkuna sababtu waa inaanu jirin marka hore drainage iyo meelo loogu talagalay biyo mareeno oo waxa weeyaan la dhisayna wada tayo leh marka waxaanu soo jeedinaynaa madaxweynaha waxaanu soo jeedinaynaa inuu la xisaabtamo golaha deegaanka iyo maayarkiisa oo la weydiiyo caasimadii Hargeysa ay ahayd muraayadii qarankani siday u eegtahay jidadkeegu siday u eegyihiin bilicdeedu siday u eegtahay wada waliba siday u go'an tahay ee aan loo aqbali karin marnaba ummadana waxaan u soo jeedinaynaa xisaabtamaan inay ku xisaabtamaan cashuurtooda dadku cashuurta ay bixiyaan in wax loogu qabto ma aha in guriga laga dhisto ma aha in cid gaar ku liibaanto ma aha in cid gaar u isticmaasho cashuurtu waa inay gashaa jidadka iyo dhulka iyo bilicda caasimadda waana in ay ka muuqataa wadooyinkeena wadadana waxaan soo jeedinaynaa dabdamiska maadaama shaqo weyn hayaan in wadadaasi degdeg loo dhiso si marka shil ka dhaco magaalada xaggan ay u soconayaan ay u helaan wado weyn oo u maraan dabdamiski xaggan markay u socdaan jidadka kale marayaan waxa soo hooni wuxuu u dhacayaa imika waa gaariga ku dhex dhacay jidka qofkaas waa cashuur bixiya gaarigaas kaga dhacay waxa weey hanti maaliyadeed ba maalin walba ku burburta gaadiidkeenu sababtay ugu jajabayaan wadooyinku waa inaanay lahayn tayo waa inay noqdeen biyo mareeno waa inay noqdeen laago waa inay noqdeen qaarkood xabaala iyo bahoro waxaanu si degdeg ugu baaqaynaa xukuumadda iyo madaxweynaha iyo cid kasta ee khusaysaba in jidadka caasimadda la dayactiro golaha deegaanka shaqadooda iyo cashuurta aynu muwaadin ahaan bixinana lagu xisaabtamo ee soo jeedinay Ridwaan Cabdi Gulaad Ariel TV magaalada Hargeysa anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warmaahe run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir